liibaan nuur cosoble oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii 14 Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe magaalada Muqdisho isla markaana dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u qaaday dalka Turkiga si xaaladiisa caafimaad wax looga qabto hase yeeshee dhaqaatiirta ayaa sheegay in dhaawacan ka soo gaaray maskaxda aan waxba looga qaban karin dalka Turkiga dhaawacan liibaan gaaray dhaawac culus waaye waqtigu gaarayna meeshii goobtiisa shaqada ka soo baxay soo buu joogay marka baa la geeyay kulay Turkigan waa la geeyay wax jawaab daawo soo baxay ma wax loo qabanayo ma حالتي سو جيدان waxna joogtii dadal midna ma lahan asal loo adeego qof meel iska loo adeego liibaan nuur cosoble ayaa la nool hadda xarun joogto ah iyo duruufo dhanka nolosha ah waxaan u haystaa 9 caruur ah iyo 2 xaas kuwaas oo ku nool degmada Wadajir gaar ahaan xaafadda Sirka Ameerikaanka liibaan ayaa ka mid ahaa muqmaalatada ka shaqaysan jiray suuqyada Muqdisho isagoo maareyn jiray nolosha qoyskiisa laakiin se hadda waxaa la soo diristay xaalad adag xaaladii soo jeeday meesha loo iska yaala qof dhaqdhaqaaqay maan cuntadii la siinaa badarka afka loo gelina waa loo musqusho waa la tagaa waa lagu soo diyaarinaa wax dhibkiisa aad iyo aad u badan sidoo kale Leila Cabdi Maxamed iyo Farxiyo Daahir Salaad waa labada xaas ee u dhaxda liibaan nuur cosoble ayaa bulshada Soomaaliyeed ka dalbadeen in caawinaad dhinaca nolosha la soo gaaraan والله إلهي وسودي وعنان كله إن شاء الله واحد بلا ما جلو وإله وإحنا سين كرنا سين تكلم وحاول ليرت معنا نجي وين حجرة دوسم كان يويرنا تدور بلادنا بابا كلام مركود جارع على شو بجلوني muddo sanad ah ayaa laga joogaa qarxii masiibada ahaa ee kooxda argagixisada al-shabaab ay ka geysteen isgoyska Soobe magaalada Muqdisho 14 Oktoobar waxaana weli jira qoysas badan oo la daalaa dhacay saameynta uu ku reebay Cabduqaadir Cali Axmed warbaahinta qaranka Muqdisho